waxa imaka suuqa la isla dhex marayo wararka la isla dhex marayo ee ku jira iyo kuwa ilaa xogaalka sheegayaan in la xaqiijinayo la leeyahay way jirtaa waa shuur waxa muuqata ama la sheegaya in xukuumaddu u diyaar garoobayso dagaal sokeeye inay gasho waxa kale oo kamid ah sababaha aan anigu ku xaqiijinayo ama aan leeyahay way ku dhaci kartaa in dagaal sokeeye meeshan ka soconayo oo la doonayo in la galo waxa kale oo kamid ah amarada khaldan ee si isdaba joog uga soo baxay wasaaradda informationka ee la oranayo warbaahinta madaxa bannaan lagu bartilmaameedsanayo ee qaar kamid ah la oranayo waxa weeyaan hawada laga saarayo la xidhayo ama la oranayo lagu hanjabayo inaanay waxba baahin waxa kamid ah qalabka la soo iibsaday ee dhageysiga ee dadka dhageysanaya ee dadkii muwaadiniinta ahaa ee sharafta iyo xididkii xigaalka ahaa ee xushmadda mudnaa lagu dhageysanayo wixii ku wada hadlayeen sida ay xisbiyada mucaaradkuba ka dhawaajiyeen iyo dad badan oo kamid ah dadka aqoonta leh waxyaabaha ka midka ah inay meeshan qoladan u diyaar garoobaysa dagaal sokeeye ayay waagtay waana cambaaranaynaa meel arrintan aad baan u cambaaranaya waana ka xumahay in dadka la dhegeysto isgaarsiinta qalab lagu xidho qolada isgaarsiinta madaxa bannaan leh haddee waxaan leeyahay shirkadahana arrintaa ha aqbalin dee kor kale dadkuna arrintaa ayuu aqbalin maale anigu ra'yigayga waa sidaa haddaynu ogno qaabka dawladdu u dhisan tahay iyo nidaamkeeda akhlaaqiyan ama siyaasiyan waad arkaysaa inaan meeshan wax wanaagsan wax wanaagga laga rabin ee xumaan laga rabo haddii aan si yar soo dulmaro aqliga bini'aadamku cidna siin maayo ummad wax wada leh oo meel wada joogta in cid gaari awooddii waddanka afduubto oo ay gacanta ku hayso ilaa iyo gunta ilaa iyo baarka wax aqliga gala maaha waxay ogtihiin dawladdu madaxweynuhu inuu imanka ayaamahan ba lahaa muddanba la hadal hayay oo laba gacantaba lagu hayo madaxtooyada waddanku lahaa in loo raro xaafad ka mid a xaafadaha Hargeysa oo reerkiisu leeyahay weliba beeshiisu leedahay madaxtooye haddii si fudud loo rarayana fila Soomaaliya maryaanta xamar qabsatay rarileed fila Soomaaliya way ogtihiin intaas soo qolaa qabsatay marna may taaban meesha ay tahay wax la taaban karana maaha madaxtooyinku waxaan maqlayseen dawladdii hoose Hargeysa loo imika la wado oo galbeed loo raro oo magaalada Hargeysa galbeedkeeda la geeyo waxyaabaha muujinaya in dagaal sokeeye loo diyaar garoobay ka mid tahay waxaa og tihiin oo cid waliba ay og tahay marka aynu qarannahay madaxweynaha iyo maxkamaddii sare iyo taliyihii ciidamada iyo wasiirka arrimaha gudaha iyo qaar kaloo badan intaasu ma israaci kartaa reer ma wada qaadan karaa caqligaagu qofna siin maayo caqliga bini'aadamku cidna siin maayo intaasoo jaga in reer wada qaato ku darso oo toddobada wasaaradood ee eeda ah ee lambarwanka ah dhammaantood toddobadaba dhiijiba ku yar reerka madaxweynuhu dhiijiga iyagaa leh iyagaa ka dhiijiya hadduu doonayo in wax lala qaato madaxweynuhu ama dawladdu ay doonayso ninkan imanka madaxweynuhu hadduu doonayo in wax lala qaybsado ama uu dalka dhiso ama uu dadka isu keeno heshiisiyo oo si wanaagsan ummadda gogol ku wada fadhiisiyo intaasoo arrin muu sameeyeen taasuna waa taa waxyaabahaas waxay caddaynayaan in aanay dawladdu wax wanaaga wadin madaxweynuhuna aanu u jeedin waxan waxaan ka maqlayay oo imanka hadallada soo duldulay ka mid ahaa inuu yidhi waddanka laba dawladood wada xukumi mayso anigu horta dawlad baan ku ogaa waddanka ee goorta laba dawladood ka dilaaceen maan ogeyn laakiin hadduu waajibkiisa qaadan waayo hadduu wixii loo doortay garan waayo haddii wuxuu meesha imanka u jooga uu garan waayo oo wax khaldan maro waddo khaldan maro oo qaraabakiil iyo reerkiisa uu doonayo inuu dadka kale ay intuu madax uga dhigo ay cashuurta ka urursadaan hadduu sidaa doonayo wax aqliga galo oo shaqaynaya waxaas maaha